بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كسر دوادا ولا لها قيمة على ACF بلشة نغلا الصعودة قضبضا كان أرنتان حساسية مهم كهدنا وإن لفضيستو أما لسهلدو أيسان بأهيم وحيوانات أما ونوليال jiifkii hurdada haddaad ku aragtid ay tusayaan qodobka kan jiritaan jinni jirkaada xiriir la leeyahay jiritaan jinni jin baa kugu hareeraysan noloshaada saameyn ku leh jirkaada iyo caafimaadkaada ku leh haddii noolayaashan iyo waxyaalahan xayawaanada aad ku riyootid bahallada kan haddaad ku riyooto aragtida ku aragtid riyad insha allah jin iyo adeegayaashiisa sixir iyo adeegayaashiisa taabasho shaytaan iyo adeegayaashooda awoodeed bay ka turjumayaan markaad aragtid noolayaashan ama xayawaanadan xayawaanka ugu horeeya koobaadi waa bisada weliba ku riyooto bisadoo dhan maaha laakiin bisada madmadow haddaad ku riyooto waxaanad ogaataa kuwaana sheegi doono macnaheedu kama dhigna arrintaasi tusaan 100% laakiin aqlaban 90% saas u badan yihiin qodobkan sheeganay ka turjumayaan bisadaha madmadow waxay tusaan jinku caashaqay haddaad ku aragtid riyada weliba si tiro badan soo noqnoqd hal jeer iyo laba jeer iyo wax la mida ma ahan mar walba kugu soo noqnoqonayaan bisadaha madmadow jin caashaq bay ka turjumayaan hadday kugu bataan jin iyo shartiis iyo awoodihiis markaad maqashidna waxaad xasuusatay quraanka kariimka kalaamka alle daawo aan ahayn ma lahan tan isaga isku akhri qaab soo noqnoqosho oo la yaab leh haddaad ku riyootid waa jin caashaq xayawaanka labaad waa libaax qaab kugu soo noqnoqday asagana wuxuu ka turjumaa ayaa la tilmaamay jin laakiin awood sare leh jin jimanka dhexdooda yacni darajo sare ka leh bay ka turjumayaan markaa ku riyootid libaax riyadana ay kugu soo laalaabtaan waa xayawaanka labaad xayawaanka saddexaad waa maska midabkiisu madow yahay haddaad ku riyootid oo riyada kugu soo laalaabto waa adeega sixir wey sixirka marka shayaadiinul insi ay sameeyaan waxaa loo sameeyaa adeega ka warhaya jin buu noqon karaa makhluuq kale noqon karaa balaayada la shaqaystaan bay noqon karaan makhluuq khaadim u ah arrintaas sixirkaas loo sameynaya saas darteed dadka qaar marka quraanka la saaray waa ninka arkay jin baa hadlaya markii jinka la weydiiyo wuxuu ka soo jeedaa macnaha uu ka wakiil yahay sixir loo sameeyo qofkan adeegihiisii way qofkan marka wuxuu ku dhex jiray adeegiisii waa marka haddaad ku riyootid maska madow riyo badan oo aad ku aragtid waa adeega sixir lagu sameeyaa adeegihiisa way khaadimkiisii way geela waa xayawaanka xiga gaar ahaan ritiga geela labkiisa ayaynu u jeednaa adugu mida wax siinaysid ma ahan midaad hoggaankiisa haysid ma ahan mida adugu fuushan tahay ma ahan mida raran tahay ma ahan waa mid ku ceyrsanaya neef geel oo ritiya ku ceyrsanaya isku dayanaya inuu ku qaniino oo ku soo daba ordaya mida adugu daba socoto ceyrsanaysid ma ahan mida hoggaaminaysid ma ahan mid ku adeegaya ma ahan mida hilibkiisa cunaysid qaalaysid ma ahan waa mid adiga ku ceyrsanaya iskuna dayaya inuu ku qaniino ku cuno geela ama neefka ritiga sida hadda ugu riyootidna waa nooc ka mid ah jinka iyo adeegayaashiisa shayaadiin ee sixirka iyo waxyaalaha la midka ku adeegta iska jir marka kuwaan ha u dayama la'aan ha iska indhatirin ha iska jaahiliyeelin halis way waxaan haddaad saa ku haysid oo aadan iska cilaajin oo aadan iska daba goyn oo iska daba qaban wax kale hadda isu bedelayaan way adkaanay marka sidaan hore idinku sheego muuqaalo badanba marka xanuunka ruuxiga nooc doonaba ha noqday uu jirkaada ku daaha sanado badan oo ku qaato way adkaanaysaa
يعني مدة قادنيسا إن لغا تخلص بل waxaa laga yaabaa inuu darajada intuu dhaafo xanuun halis isu bedelo oo insaanku daawadiisu soo aqoonba ama daawadiisa kaalmaanta kaliya yaqaan bas waxaad arkaysaan kansar waxaad arkaysaan balaayo kale la sheegaya waxaan xanuunadan cabsidaya masaa'ibka waxaan ayaa dhalaya shayaadiinul insi wal jin shayaadiinta jinka markay insaanka lagu salado iyagoo haddana ducafaa laana insaan ka daciifsan baa lagu saladaya qofka insaanka ilaahay markuu abuuro waa la ilaaliyaba markuu ilaahay qofka abuuray wuu ilaaliyay malaa'ig khalqi kala ilaahay u adeejinay laakiin qofka insaanka ficiladiisa iyo qaab dhaqankiisa nololeed baa dilaacinaya ilaaladaas xijaabka ilaahay siiyay difaaca ilaahay geliyay asaga iska jeexjeexaya asaga ka dhaxbaxay marka shaydaan iyo jin qof lagu saladaa daarto waa qof daciifa ilaa shaydaanka iyo jinka ayaga daciifa inna kayda shaydaani kana daciif jinku waa daciif miskiin waxa makalo laakiin qof ka sii daciifsan oo insiya lagu salada meel Allah ka helay waa khanaas macnihiisu waxa weeye min shar al-waswas al-khannas marka ilaahay aadan xusin marka ilaahay xuski bimacna iyo dhufayskii uu ku siiyay aadan isticmaalin cid lu ka helay wuxuu gabanaya marka ilaahay ilowdiyo iyo xuskiisa waa ku dhow marka ilaahay xustin oo ka carariya mar wuu sii ordin mar waa soo ordin ila dhiigaas xataa mar raacaya soontu rasuulka nooga sheegay macnaha sharkiisa suu u badan yahay ilaahayna wax badan ugu fududeeyay kibisinka iyo ilaahay aayaadkiisa ka adan iyo sixir adkaarto subaxii galabkii quraan wax walba ad isticmaashid meel kale ha aadi halis way yeyga bahalka la yiraahdo waa taqaanaa micida dheer halista asagana hada ku riyooto laakiin asaga wuxuu uga duwan yahay kuwaas hadaad ku riyootid waa jin daciifa ilaa wuxuu iska ducafe laakiin waa kan xeelad iyo tabar lahayn buu ka turjumaya yeygu markuu aad ku riyoonaysid jin daciifa oo xeelad lahayn aayadda ugu horeysa marka lagu aqriyo ooyayo isdhiibay wuu ka turjumaya xayawaanka xiga waxa weeye daanyeeradu halis wey daanyeerku wuxuu ka turjumaa adeega fulay shayaadiintu soo dirsadeen shayaadiinta insiga iyo kuwa jinka ama kuwa jinka yani adeega ay soo dirsadeen oo adeega kugu saladeen sixir xasad il balaayo ka turjumo wuxuu rabaa ka turjumo adeega adiga lagu saladay waay laakiin fulay cabsanay marba laga yaabo ka taga martaba kugu soo noqdo fulay adigu tutiyaaminaa fulay way kan markaad ku riyoonaysid daanyeerada dabcan waxaan waa inay kugu soo mar iyo laba jir maahan wax kugu soo noqday caadaysatay riya ahaan la yaabtay qaabkaad u arkaysid iyo wixii la midka dhinaca kale xayawaanka gaar ahaan madow nabiga aba sheegay al-kalb al-aswad shaytaan madow waa shaytaan lidaalika xataa adoo salaad tukanaya hadduu sutra ku oolino ku hormaro salaadaada way burtay dib u xiranaysaa madow asna halistaas leeyahay ku riyooto kugu soo noqnoqdo oo kugu badbato xayawaanka xiga waxa weeye haram cadda ama shabeelku waa xayawaanada ama haram caddu kuwa ugu dheereeya haday carar isku daya weeye haddaad ku riyootid waa jin shar badan kan xayawaankan gaar ahaan waa kuwa halisa waa aragtay markay ugaarta fiidiyaasha YouTube-ka ama TV-yada waa ka aragtay sida ugaarta u laayo u xoojiyo lagama fakan karo xaaladiisaas oo jinu ka turjumaya oo shar badan oo dagaal badan oo masiibo badan laakiin aakhirka waa la jabinaya waa mid jabay macnaha mar waa dagaal badan yahay waa isku day badan yahay laakiin si degdeg ah lagu jabin kara jinkaas xayawaanka xiga waxa weeye caarada ilaahay kuwa qeyrkii caabudo markuu ilaahay wax ku shabahayay wuxuu ku tilmaamay cibaadadoodaas ay shirkiga ahayd in guri caara oo kala ay tahay waxba anfacay macnaha inna awhana albuyut guriyo waxa ugu tabar daran buu ilaahay labaytul ankabut caarada gurigeeda وحركة حنا يساس كحرته أدرس كسرعنا يا بس كتير يساب عارضة جانا هن مركي مدودة هاي وحي كتر تومي ساه تشينك مسقولة هذا الكيسان دي ذكري بالوجا لوجا صباح سبب
ilaahay shartooda inuu ka xajaabo shayaadiintaas iyo jimankaas musuusha dhex fadhiya haddaad akhrin soo maahan way kusoo gelayaan gaar ahaan haddaad meesha ku shubtid biyo kulul caruurtiisa inaad laysaa laga yaabaa sida uu kugu soo galo ama aad ku istaagtay sida kugu soo galo marka bisin ku gal musuusha bisin uga soo bax jinka musqulaha wey marka caara in badan ku riyootid gaar ahaan midda madow xayawaanadan madmadow qaababkan tirada badan soo noqnoqod kale haddaad ku riyootid waxay ka turjumayaan xanuunka ruuxiga jin iyo sixir iyo adeegayaashiis salka la gelayo oo sabab ayuu yahay mar haddaad taa ogaatay daawada waa fahantay qur-aanka kariimka meel kale u carari halkaa u carari istaawe iska cilaaj jirkaada ka nadiifi waa ducaafo aayaadka ilaahay baa haysataa oo cidi ka xoog badan aysan jirin aad baa umahadsantihiin CF bulsho sii sheergareeya muuqaalka kan walaalo badan si ay arrintan ugu baraarugaan fasirkeedana ay riyooyinka noocaas ee soo noqnoqda ay u helaan like-tana ka iloomi subscribe-na CF bulsho sira badan baad ugu iman doontaa bilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu